kubadda cagta ah xusuustu way gaaban tahay. dadkuse waxay xasuustaan goolasha, koobabka iyo dabaaldegyada buuxsha garoonka, laakiinse mararka qaar waxay iloobaan safarkii. ka hor kiristaanihii ahaa mashiinka goolasha waxaa jiray wiilkii yaraa ee ka yimid jasiiradda Madeira. wiilkii koobabka ka ciyaari jiray ma uusan keliya aguurajin jirin ee difaayada ayuu dhulka wari jiray. Cristiano Ronaldo yaraantiisu dadku waxay lacagta ku bixin jireen inay daawadaan gambiskiisa oo keliya. wuxuu ku caanahaa aguurajin la yaab leh oo uu difaacida ku qaldo iyo xawaara gambis oo uusan difaac u gaari karin. xitaa heer wuxuu gaaray ay taageerayaashu istaagaan ka hor inta uusan difaac u gooyin sababtoo ah gambiskiisu lama saadaalin karin. wuxuu ahaa wiil aan calaamitada gambis ku baran ee waddooyinka ku bartay ee maslaxa u saaran inuu taageerayaasha madadaaliyo. laakiin 2014 waxaa Cristiano Ronaldo jeebka ka soo gaaray dhaawac aamusan oo aan weli si buuxda uga bixin. sidaa darteed duruuftu waxay ku kaliftay in Ronaldo uu isbedelo. wiilkiisa difaacyada dhex mari jiray wuxuu isku bedelay wax kale. wuxuu noqday mid boos qaadasho badan, wuxuu kaloo noqday mid dilaa ah. ciyaartiisuna waxay isku bedeshay gambis yar iyo goolal badan. wuxuu noqday weeraryahan mashiin ah, waarsade ku sugan sanduuq. wuxuuna Yurub gaarsiiyey heer goolashiisu ay ka da'aan garoomada, asagoo u jeestay inuu rikoor walba jabiyo. laakiin isbedelkaas waxaa si tartiib ah u lumay Ronaldihii seeroolka ahaa, Ronaldihii gambiskiisu ay difaacyadu ka qalqali jireen. xirfadiisii uu ku faani jiray ayaa waxay noqotay mid si tartiib ah loo iloobay. wuxuusan noqday mid dadku ay tiro koobaan keliya goolashiisa, balse qaar ka mid ay yidhaahdaan Ronaldo dribbler weyn ama nin gambiska ku fiican ma ahayn. balse kuwii xasuustay habeenadii Manchester United waxay yaqaanaan runta. goolasha ka hor halyeennimada inuu ahaa mid ka mid ah dribladii ugu fiicnaa ee kubadda abad soo maray. Truth takes flight.